maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya ciidamada ka soo goosanaya maamulka Somaliland kuwaasoo ka biyadiiday hogaaminta guracan ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Otabyo kuwaysan hubka noocyadiisa ka duwan oo sita qoryaha daranuriga u dhaca iyo teknikada gaashaaman ayaa kamira kuwa soo goosanaya maalinba maalinta ka dambaysa haddaba barnaamijkan waxaad ku daawan doontaan saraakiil ka soo goosatay maamulka Somaliland isuna soo dhiibay ururka sinaanta iyo xafladan ama munaasabadan maanta waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta Korneyl Gamaal Baaxad oo howlo shaqo ugu maqnaa dalka gudihiisa saldhigii labaad ama ururka cadaaladda iyo sinaanta Somaliland waxaan ku soo dhaweynaynaa mar labaad isagoo howlo shaqo u yimi saldhigii koobaad ee Qardho isaga iyo cutubyo ka tirsan ciidamadiisii waxaanu leenahay korneelka soo dhawow howlaha shaqada iyo awaamirtana waa la kala qaadan doonaa biidnillaahi kariim waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa maanta maamulka dulleysan ee sheegaanta digniinaan u dirayno dadka dabadhilafyada oo ah ee culayska iyo cadaadinta ku haya ama shaqaalaha ama ciidamada taageersan ururka cadaaladda iyo sinaanta Somaliland midna waxaan u dirayaa fariin shacbi weynaha Somaliland iyo hay'adaha samafalka inaanan wax dhibaato iyo wax mushkilada midna u geysan doonin ee aanu la shaqayn doono oo aanu ilaalin doono iyaga iyo maalkoodaba kuwa aanu cadaaladda u doonaynana iyaga yihiin ummadda reer Somaliland ee dulmiga badan ka cabatay ee dulmiga diiday siyaasiyiinteeda ciidamadeeda shicibkeeda aqoon-yahankeeda intaba halkan waa halkii ay kaga bixi lahaayeen ee ay ka talin lahaayeen ee ay Somaliland la wada leeyahay oo mida ka dhisi lahaayeen waanuna soo dhaweynaynaa gacmo furan baanuna ku soo dhaweynaynaa xafiiskii siyaasadda insha Allah biidnillaahi kariim dhaxsaan u furi doonaa caasimadda maamulka Puntland korneelka soo gudtay shaqadiisa iyo ciidankiisa maalinba maalinta ka dambaysa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ka imanaya cutub kii hore ka badan taasna waxa keenay maamul xumada iyo cadaalad darrada iyo taraabilisanka sheegaantu ku hayso ummadda waa la arki karaya Nuux Ismaaciil Taani sidoo uga cararay Ceergaabo sidoo uga cararay waa sidaas oo abada waqtigii fadhigu wuu dhamaaday lixda gobol ba jabhadu way ka jirtaa waxay fulin doonaan hawlihii hore aan ugu dhawaaqay saraakiisha iyo wasiirada waxaa arki doontaan Muuse guriga loogu daatay haddii Allah uu dalo ogolaado waa waqti aan dheerayn Muuse siyaasadda ma yaqaan wuxuu yaqaanaa qorigana annaga la garanayna haddii Allah yidhaaho annaga la garanayna waa ka albaabada isku xulay siyaasadda dibadda iyo tii gudahaba insha Allah biidnillaahi kariim waqti aan dhow uu ka carar doonaa waxaan halkan ka warramayaa inaan muddo badan ku maqnaa howlgalkaas aan ka fulinayay buuraha gobolka Sanaag waxaan u maleynayaa deer bishii hore 9 kadib halka ka baxay inta waxaan ku maqnaa howlgalka maanta waxaan joogaa saldhigaygii koowaad waxaan ka soo ambaxay saldhigii labaad waxaan soo mahadcelinayaa odayaashii gobolka Sanaag ee aad iyo aad ila shaqeeyay saasaynu wada shaqeynaa baan leeyahay shaqo wanaagsan baa qabateen baan leeyahay sheegaanta sheeganaysaa waxaan iyadana leeyahay howlgalladii ma dhammaan hadday kow yihiin maantay bilaabmayaan oo kow yihiin hamoodina inaan tegey maan tegin waan soo noqonayaa si degdegana u soo noqonayaa waana bareerayaa noqodkayga dambe aniga iyo saraakiisha halkan joogtaana Nuux Taani madaxweynuhu waa soo yidhi runtan idiin sheegaya wixiina baaxad aad soo qabatid mooyaane ha igu soo noqon wuu quustay markaan soo baxay xagga u soo baxay mar baan ka wada baxnay dalka soo keligiis halkaa maray